daawade ma qiyaasi kartaa adduun aan lahayn kombiyuutar laptop iyo excel wax lagu qoro mise ma isweydiisay sababta ay ku soo gaareen word iyo excel qaabka wax loogu qoro iyo qaabka ay dunida ku soo gaareen magacayga waa Cabdiraxmaan Xasan halka iga daawanaysana waa Cabdiraxmaan Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta haddii maanta kombiyuutarkaaga afurto waxaad arkaysaa wax iska caadi ah laakiin 50 sano ka hor kombiyuutarku wuxuu ahaa mashiin weyn oo qol dhan buuxiya yacni qol dhan 145 mitir laba jibaaran yacni waa qol cabirkiisa aad iyo aad u weyn yahay qof kasta oo marka waqtigaas joogay ama xilligaas joogay ma awoodi karin inuu iibsado kombiyuutar ama ma awoodi karo inuu qofkaasi ku dhiirado inuu kombiyuutar iibsado laakiinse waxaa bedelay hal nin qaabka ay dadkaas u fikrayaan waxaan ahaa Bill Gates ninka la yiraahdo Bill Gates ayaa ku dhiiraday in kombiyuutar walba maanta la saaro xafiis goob kasta ganacsiga institutionada dawladda meel kasta oo maanta maartay miis in kombiyuutar la saaro ninka ku dhiiraday wuxuu ahaa Bill Gates wuxuu lahaa aragti aad u fog wuxuuna fahmay in tiknoolajiyada ay ku soconayso mid aad u xawaare sareysa wuxuuna ka qayb qaatay heerka maanta tiknoolajiyada casriga ay soo gaadhay waana ninka ka qayb qaatay in maanta kombiyuutarkaaga loo xaafada jooga excel iyo word aad wax ku diyaarsato sida caadiga ah Bill Gates ma ahayn kaliya nin ku fiican coding-kiga oo ahaa qof aragti fog ku leh tiknoolajiyada sanadii 1975 isaga iyo Paul Allen waxay ahaayeen asaga saaxiibkii waxay aasaasan shirkadda la yiraahdo Microsoft Office xilligaasi shirkadda Microsoft Office ay asaaseen dadku waxay u haysteen in kombiyuutaradu ay u haysteen in kombiyuutarada yihiin qalab loo isticmaalo ama loogu talagalay dadka maanta saynisyahanada dadka wax ikhtiraca dadka dunida wax ku soo kordhiya inay hayeen balse waxa aragtida bedelay ama fahmay Bill Gates caqabada ugu weyn oo haystay ama uu dareensanaa in dadka ay dareemayaan waxay ahayd in hardware-ku uu ka weynaa software-ka yacni hardware-ka ayaa ka weynaa software-ka ku jira marka uu yaraa hardware-ka laakiin aad u weyn daawada markii lagu leeyahay 154 mitir daba jibaaran yacni qol dhan yacni waxay ka dareemaysaa halkaasi in hardware-ka qalabka kombiyuutarka uu aad u weynaa soo marka ujeedada uu fahmay waxay ahayd in miis walba loo saaro wuxuu ogaaday software-ka ku jira qalabkaasi inuu ka qaalisan yahay ama uu ka muhiimsan yahay hardware-ka yacni hardware-ka muhiimad la siinaya aragtidaas marka ayaa Bill Gates ku dhalisay in software-ku uu hakad geliyo in hardware-ku uu bilaabo xoog inuu hardware-ka saaro waayo software-ka mar walba wuxuu aaminsanaa Bill Gates in hardware-ka ka qaalisan yahay maxaa yeelay hardware-ka haddii la yareeyo dadku way u sahlanaanaysaa in xafiis iyo meel walba la dhigto iyo institution walba sidaas ayuu maartay Bill Gates ku sameeyay wuxuuna fahmay Bill Gates in hardware-ka haddii la yareeyo ama la sigo ama la habeeyo in maartay qof walba ay u fudaanayso in xafiiskiisa institutionkiisa meel walba goob waxbarasho uu dhigto haddii aad jeceshahay muuqaallo kuwan ka badan fadlan qaybta comment-iga hoose igu reeb si muuqaalada kale aan soo geliyo ay ku soo gaaraan haddii aad jeceshahay taariikhda tiknoolajiyada aad u baahan tahay in laga dhaadhiciyo fadlan qaybta comment-iga igu soo qor si muuqaalada aan soo geliyo ay ku soo gaaraan